kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliland oo u dhawaaday magaalada Laascaanood iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo go'aan culus ka soo saaray xiisada taagan weerar xoogan oo lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Ciraaq iyo Bahrain intaynu warkeena ku gudi jirno waxaan barnaamijkeena inta badan kaga bogan doontaan xaaladda bariga dhexe Iiraan iyo Israa'iil Puntland oo ku dhawaaqday inay la xisaabtami doonto madaxweyne Xasan Sheikh iyo dacwad ay ka gudbisay aad maqli doontaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo cambaariyay tilaabadii lagu celiyay diyaarad 3 xildhibaano ka soo jeeda Puntland madaxweyne Xasan Sheikh oo la hadlay amiirka dalka Qatar taageerayna xili la weeraray xildhibaanadii la celiyay oo diiday la kulanka wasiiro iyo taliyeyaasha Diyan oo ka socda dowladda federaalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena u diyaar garooba ayagiyo faahfaahsan rabtaa inaad la jaanqaado xawaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhammaystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraal la sugin maanta na soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda waxaynu ku bilaabaynaa wararkeeni maanta ciidanka militariga Soomaaliland oo u dhawaaday waqooyi iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo go'aan culus ka soo saaray xiisada taagan waxaynu ku bilaabaynaa wararka naga soo gaaray jiidda hore ee gobolka Sool ayaa sheegay in caawa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan laga dareemayo nabaaxiga magaalada Laascaanood ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa la sheegay inay u soo dhawaadeen fariisamahoodii hore taas oo dhilisay hadalhayn badan iyo walaac loogu qabo in mar kale uu qarxo dagaal toos ah wareedyo dhanka ammaanka ayaa xaqiijinaya in guutooyin ka tirsan militariga Soomaaliland ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen fariisamaha bari ee magaalada tilaabadan ayaa timid kadib muddo ay ciidamadu ku jireen difaac iyo isdiyaarinta xaalad kasta oo soo kororta dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay maqlayaan dhawaaq gaadiidka gaashaaman inkastoo aan weli la soo sheegin wax iska horimaad toos oo dhacay dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa soo saaray go'aan xasaasi oo ku aadan xaaladda gobolka Sool iyo guud ahaan amniga qaranka madaxweyne Ciro ayaa warmurtiyadu soo saaray ku cadeeyay qodobadan wadahadal iyo nabad in xukuumaddiisu ay mudnaanta koowaad siinayso in mushkiladaha goboladaasi lagu xaliyo miiska wadahadalka iyo nabadeynta sugidda amniga in ciidamadu ay u taagan yihiin difaaca xuduudaha balse aysan bilaabi doonin weerar aan loo baahnayn baaqa shacabka wuxuu ugu baaqay dadka deegaanku inay degnaanshiyaha dhowraan isagoo ballan qaaday in dowladdu ay xaqiijin doonto xasiloonida gobolka xaaladan ayaa mid kacsan waxaana isha lagu hayaa sida ay u fulayaan amarada ka soo baxay madaxtooyada iyo haddii ciidamada dhulka ay u dhawaadaan waqooyi ay dib u laaban doonaan iyo kale wixii warar ka soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal weerar xoogan ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka Ciraaq iyo Bahrain diyaaradaha dagaalka ee dowladda Iiraan ayaa weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi wararka hordhaca ayaa sheegaya in jugta qaraxyo culus laga maqlay gudaha iyo hareeraha garoonka iyadoo cirka lagu arkay holac iyo uuro isku shareereeyay daqiiqado kadib weerarka dadka degan xaafadaha ku dhow garoonka ayaa sheegay inay si cad u maqleen qaraxyada taas oo cabsi gelisay shacabka ilo amni ayaa tilmaamay in weerarku
bartilmaameedsaday qaybta militariga ee ku dhex taala garoonka diyaaradaha, halkaasi oo ay fariisan ku leeyihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga caalamiga. Ilaa ay hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka. Ma jiro war rasmi oo kasoo baxay dhinacyada Iiraan ama Mareykanka oo ku saabsan weerarka iyo waxa sababay xiisaddu inay sii kordhayso ilaa iyo gobolka. Si kastaba, weerarkan ayaa imaanaya xilli sare u kacday xiisadda amni ee Bariga Dhexe. Garoonka diyaaradaha Erbil ayaa marar hore noqday bartilmaameed weeraro la xiriira loolanka u dhexeeya quwadaha gobolka, inkastoo ammaanka halkaasi si weyn loo adkeeyay sanadihii u dambeeyay. Dhanka kale, saldhigyada Mareykanka ee Baxrayn ayaa saaka lagu soo waramayaa in mar kale la beegsaday, iyadoo duqeymaha Iiraan ay ka geysanayaan gacanka ay sii xoojinayaan. qiiq madow ayaa la sheegay inuu kasoo baxaya xarunta shanaad ee ciidamada badda ee Mareykanka ee Baxrayn kadib markii la sheegay in saldhig mar kale lagu garaacay gantaalada balaastikada ee Iiraan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Puntland oo ku dhawaaqday inay la xisaabtami doonto madaxweyne Xasan Sheikh iyo dacwad ay ka gudbisay. Dowladda Puntland ayaa si kulul uga hadashay isla markaana war-saxaafadeed ka soo saartay tilaabadii dowladda Soomaaliya hawada uga celisay diyaaraddii siday xildhibaanada ee ku wajahnaa Garowe. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha Puntland ayaa waxaa lagu eedeeyay in falkaasi uu ka dambeeyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale, Puntland waxa ay sheegtay in madaxweyne Xasan Sheikh kula xisaabtami doonto tilaabooyinka gurcan ee uu qaaday, kuwaasoo markii labaad halis lagu geliyey nafta muwaadiniinta reer Puntland. War-saxaafadeedka ayaa loogu baaqay beesha caalamku inay soo firgeliyaan tilaabooyinka qaldan oo ay qaadayaan madaxda dowladda Soomaaliya. Sidoo kale, Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa cambaareeyay tilaabadii lagu celiyey diyaarad siday xildhibaano ka soo jeeda Puntland. Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa dhankooda war-saxaafadeed ay soo saareen ku cambaareeyay go'aan ay ku sheegeen inuu lahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ee lagu amray in hawada laga soo celiyo diyaarad siday xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo kusii jiray deegaan doorashadoodii ee Puntland. Goluhu wuxuu tilaabadaasi ku tilmaamay mid leh cawaaqib sharci, dastuuri iyo siyaasadeed oo culus, iyagoo sheegay in xildhibaanadu ay leeyihiin xasaanad iyo xorriyad dhaqdhaqaaq oo uu damaanad qaadaya dastuurka ku meel gaarka. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, fargelinta safarkoodii iyadoo loo adeegsanayo amar ka yimid awoodda fulinta waxay jebinaysaa mabda'a kala soocidda awoodaha dowladeed, isla markaana ay tahay fargelin toos oo lagu sameeyey hay-adaha sharci dejinta. Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka digay in hay-adaha qaranka, gaar ahaan kuwa la xiriira duulista rayidka, aan loo adeegsan doonin siyaasadeeda. Waxay sheegeen in hay-adda duulista hawadu ay u xil saaran tahay sugidda badqabka iyo nidaamka hawada dalka, balse aan loo adeegsan karin cadaadis siyaasadeed. Tilaabadan ayay ku doodeen Golaha Mustaqbalka inay dhaawacayso kalsoonida shirkadaha duulista, sumcadda hawada Soomaaliya iyo waajibaadka caalamiga ee dalka kaga xiran nidaamyada duulista rayidka. War-saxaafadeedkan ayaa intaasi ku daray in go'aankan uu sii fogeynayo khilaafka siyaasadeed xilli dalka uu marayo marxalad siyaasi ah u baahan degnaansho, wadatashi iyo is-afgarad qaran. Goluhu ayaa ku baaqay in hoggaanka dalka uu muujiyo xilkasnimo, biseyl siyaasadeed iyo ixtiraam buuxa oo loo hayo nidaamka federaalka iyo hay-adaha dastuuriga. Ugu dambeyntii, Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo waxa ay ku tilmaameen jidgooyada safarka xildhibaanada si loo ilaaliyo kalsoonida iyo midnimada qaranka, isla markaana loo xoojiyo wada shaqeynta hay-adaha dowladda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheikh oo la hadlay amiirka dalka Qatar taageerayna xili la weeraray. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa khadka telefoonka kula hadlay amiirka dowladda Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, ayagoo ka wada hadlay xaaladda amniga gobolka iyo xiriirka laba geesoodka ee labada dal inta uu socday wadahadalka. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si cad u muujiyey in dowladda federaalka Soomaaliya ay si buuxda ula garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Qatar. Madaxweynaha ayaa xusay in weerar kasta oo lagu qaado dhulka Qatar uu yahay mid si toos ah uga hor imaanaya sharciga caalamiga, isla markaana aan la aqbali karin. Madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in Soomaaliya ay aaminsan tahay in khilaafaadka iyo xiisadaha ka taagan gobolka lagu xallin karo wadahadal iyo diblomaasiyad halkii loo adeegsan lahaa awood militari. Wuxuu sidoo kale bogaadiyey doorka Qatar ay ka qaadato horumarinta gargaarka bini'aadantinimo iyo taageeridda ay siiso Soomaaliya. Taageeridan
oo muujiyey madaxweynaha Soomaaliya ayaa timid kadib markii dowladda Qatar ay ka mid noqotay dalalka la sheegay inay weerar kala kulmeen Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. Arrintaasi oo sii kordhisay walaaca ku aadan xasiloonida gobolka. Ugu dambeyn, labada hogaamiye ayaa adkeeyey midnimada ay leedahay sii xoojinta xiriirka taariikhiga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar, iyagoo isku raacay in la dardargeliyo iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo horumarinta. Weli waxaad la socotaan wararkii Wajaba Media. Ugu dambeyntii, xildhibaanadii la soo celiyey ayaa diiday kulanka wasiiro iyo taliye Asad Diyaano oo ka socday dowladdu. Wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya sida wasiirka arrimaha gudaha Cali Xoosh, wasiirka tamarta Cabdilaahi Bidhaan iyo wasiiru dowlaha maaliyadda Wasiir Xaange oo uu weheliyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa tegay Hotel Airport ayagoo doonaya inay la shiraan xildhibaanadii laga soo celiyey hawada xilli ay u socdaalayeen magaalada Garowe. Wararkan helnay ayaa waxay sheegayaan xildhibaanadan inay iska diideen wasiirada iyo taliska booliska Asad Diyaano, taas oo keentay inay dib ugu soo laabtaan. Dhinaca kalena, xildhibaanada la soo celiyey oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedo gaara laga lahaa celintoodii. Senator Sareedo oo ka tirsan aqalka sare ayaa sheegtay in Villa Soomaaliya ay dooneyso inay xoog ku geyso baarlamaanka si ay dastuurka u ansixiyaan. Xildhibaan Cabdilatiif Muuse Sanyare ayaa dhankiisii sheegay in xildhibaanada loo maleegay shirqool la rabay in diyaaraddu la dhacdo oo adduunka la dhaafiyo. Wuxuu ku eedeeyey in arrintaasi uu ka dambeeyo madaxweyne Xasan Sheikh oo uu sheegay in sharcigii meel iska dhigay oo hawadiisii uu ku shaqaynayo, isagoo ku adkaystay inay u baxayaan Puntland oo dhacdadii maantana ka jawaabaysa ayaa joojisay duulimaadyadii ay diyaaradda Daalo ku tegi jirtay deegaanada maamulkaasi. Guud ahaan waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Wajaba Media. Tayo kulanti dambe oo xiiso leh akhyaaray. Nabadgelyo.